faahfaahinno degdeg ah ayaa ka soo kordhaya howlgal qorsheysan oo ay ciidamada danab xalay ku beegsadeen saldhiggii ugu weynaa ee kooxda shabaab ay ku lahaayeen gobolka Baay. waxaan idiin soo gudbin doonaa xogaha iyo macluumaadka ku saabsan khasaaraha kooxda gaaray iyo si la mid ah burburka loo geystay mid ka mid ah warbaahinada ku hadasha afka kooxda oo ku yaala deegaankaasi. haddii aad igu cusubtiin kusoo biiro page-ka oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiib. hagaagkan ku bilaabo. ciidamada commandoska danab ayaa xalay howlgal la qorsheeyay isla markaana loogu daatay saldhiggii ugu weynaa ee kooxda shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Baay, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Buulofalay. waxaa la sheegay inay ku beegsadeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxda iyo maleeshiyaadkooda oo ku sugnaa halkaasi xilliga howlgalka uu dhacayay. waxaa la sheegay in halkaasi ay kooxda uga soconayay kulan gaar ah madaxda kooxdaasi, waxaana taliska ciidanka militariga Soomaaliya oo war kooban soo saaray ay sheegeen in ay xaqiijiyeen in halkaa lagu dilay in 20 xubnood oo isugu jira dagaalamayaal ka tirsan kooxda iyo horjoogyaashooda. xogtu waxay tilmaamaysaa in halkaasi si la mid ah ay ciidamada danab ee howlgalka fuliyay ay ka sii dayeen xubno kooxda u xirnaa, kuwaas oo la sheegay in kooxda qaab afduub ahaan ay u haysatay. deegaankan waxaa ku yaala maxkamadda ugu weyn ee kooxdu ay leedahay oo ay ku go'aamiyaan kiisaska adag ee iyagu gacanta ku haya. waxaa wararku ay sheegayaan in ciidamadii fuliyay howlgalkaasi si nabad ah ay halkaasi ay dib uga soo laabteen, waxayna isticmaaleen diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca oo ay ka duldegeen iyada oo aysan kooxdan marnaba aysan filanaynin. marka la eego howlgalkan abaabulnaa ay ciidamada danab ay ka fuliyeen deegaankan, waxaa la sheegay in si la mid ah ay ku burburiyeen gebi ahaanba idaacaddii ku hadlaysay afka kooxda ee deegaankan ku yaalay oo ay ciidamada danab ku guuleysteen inay cagta mariyaan, waxaana la gubay saldhiggii kooxda ay ku lahaayeen isla deegaankan. taliska ciidanka militariga Soomaaliya waxay sheegeen inay weli ku raajoogaan ururinta xogta iyo macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan howlgalkan oo ay xaqiijiyeen inuu ahaa mid guuleystay. deegaankan ay howlgalka ka sameeyeen ciidamada danab ee Buulofalay waxay ka mid tahay deegaanada ay ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab, waxaana la sheegay in si lama filaan ah oo lagu galay ay kooxda dhexdeeda ku abuurtay tuhun weyn.
برتعد كويس اهو. راسه علي. برتعد كويس اهو. راسه علي. برتعد كويس اهو.